waxaynu ku baranaynaa qaybta tan sida loo sameeyo modules oo ah qaybaha uu leeyahay joomluhu qayb ka mid ah iyo sida loo eego positionada ay modulesku yaalaan waxaanu dabad example u sameyn doonaa slash show module ka mid ah modulada oo slash show la yiraahdo waxaynu eegi doonaa dabeeto sida module disable ahaayo meesha laga saaray dib loogu enable gareyn lahaa ama mid meesha yaala sidii looga saari lahaa intaas aynu maanta hadii la ku eegi doonaa session-keenan waxaan u baahanahay marka inaad ku jirto joomlahaagii qaybtii public ahayd iyo qaybtii laga maamulayay caadiyan marka modulesku maxay yihiin modulesku waxa weeye waa qaybaha kan tusaale ahaan intan sawirka halkan inoo yaallo oo kale waa module position waa qayb loogu talagalay in wax yar oo gaar ah la dhigo sida sawir iyo qoraal modulada waxa kamid ah halkan uu higsigu yaallo oo kale waa moduleka qaybtii midigta halkan ay well remit taallo oo kale ayaa iyaduna the same kamid ah sida marka moduleka loo meelaha positionada hadii jeer la dhigayo waxa kamid ah qaybta tan bidixda in moduleska la dhigay iyagana waa la soo gelin karaa marka meelahaas oo dhan waxa kamid ah moduleka halkan search meeshan ay taallo halkan haysaa loo waa module halkan waxa weeyaan inuu magac leeyahay baa laga yaabaa sideen ku ogaanaa tusaale ahaan kale moduleka kan higsi qaybtan uu yaallo maxaa la yiraahdaa modulkan waxa lagu ogaan karaa waxa la soo gelayaa qaybtii laga maamulayay website-kaaga si positionada modulada aad u ogaato waxa leedahay extension waxa dooranaysaa module manager higsi baad xalan ka baaraysaa marka higsi oo qaybtii halka ay noo taalay moduleka magaciisa meesha uu yaallo positionka maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa halka markaad higsi eegto higsi positionka uu yaalla waa position 7 marka halkii left uu ka oran lahaa halkii right ka oran lahaa wuxuu yaqaanaa position 7 marka positionada halkan yaalla dhinacani halkan higsiga iyo word mid yaallaan waa position 7 weey image-ka halkan yaalla isagana meeshan uu yaalla maxaa la yiraahdaa waxa laga eegayaa isagana waa kan image-kan isagana positionka uu yaalla waxa la yiraahdaa position 3 some of the joomlaha qaarkii halka waxa uu yaqaanaan wixii halka ka soo baxay waxa yiraahdaan waa slash show weeyaan slash show kan laakiin position 3 buu hadii jeer u yaqaan meelo badan baa jira halka ay search taalo maxaa loo yaqaan waxaan ka baarayaa halkan u baan search ka baarayaa waa kan search qaybta ay taalo waxa la yiraahdaa position 0 baa hadii jeer marka position isku waa modulesku meelaha ay yaalaan baa hadii jeer kuwa noqonaya haddaba aan ku horeeyo disable-kii iyo enable-kii waxaan doonayaa qaybta higsi meesha inaan ka saaro laba option baa ku banaan in gebiga la masaxo iyo in la unpublish lagu sameeyo waxaan ku noqonayaa qaybtii laga maamulayay website-kayga waxaan soo gelayaa extension waxaan oranayaa module manager markaan imaado higsi waa kan higsi halka tig baa saaran tigta haddana way ku dhufto waa unpublish click baan siiyay waxa ka noqon doontaa meeshii x that means marka imika waa unpublish haddaan marka website-keeni ku noqdo oo aan refresh gareeyo higsi meeshii way ka baxaysaa haddaan doonayo well remit aan ka saaro the same halkan baan ka baarayaa marka extension waxaan leeyahay module manager waxaan leeyahay marka well remit waa kan halka imika ay ku qoran tahay marka tigtu saaran tahay baan ku dhufanayaa uu ka saaraya marka sida site-keeni ka muuqata labadiiba hadda waynaga ka saarnay haddii la enable garanayo la soo celinayna ku noqo halkii laga maamulayay website-kaaga waxa tira extensions waxa tira module manager halkii aad tigta yar ka qaaday ama aad ku dhufatay baad ku celinaysaa haddaad doonayso higsiga iyo wall remit aad mar kaliya meesha isku soo wada celiso ka hore tig saar kana tig saar waxa tira marka publish labadoodii marka mar kaliya ayay meeshii ku soo noqon doonaa hadii ay refresh nidhaahno way qaybta tan image-ka ayaan doonayaa inaan ka saaro hadaba iyagana si aan uga saaraya waxa la leeyahay image buu ahaa waxaan tagayaa extension waxaan leeyahay module manager dabad halkii image-ka ayuu man tigti yar ku dhufanaya waa unpublish dabad website-keeni marka ku soo noqonaya waxa la leeyahay maxay home uu ka baxaya hadaba waxaan u socdaa in halka image-ka aynu ka saarnay imika ee la yiraahdo position 3 inaynu soo galino sawirro isbedbedelayo oo slash show sidee hadaba loo soo galinaya halka marka doonayso in sawirro la soo galiyo isbedelaya de modulesku
qaar baa u baahan in lagu install gareeyo kan weyn iska soo gelinayna uun qaarkood baa u baahan in lagu install gareeyo marka waxaad u baahan tahay inaad haysato modules tusaale ahaan module /show sameynaya halkee laga soo helaya haddii aanad haysan waxaa laga soo helayaa waxaad gelaysaa simple waxaa laga soo helayaa waxaad gelaysaa chomod.org halkaasaad ka soo helaysaa oo aad ku baaraysaa markaa /show module dabeed sidii caadiga ahayd baad u download garaysanaysaa marka haddaba aad download garaysato waad install garaysanaysaa markaa sidee haddaba loo install gareeyaa markaa moduleska si loo isticmaalo waxaa loo install gareeyaa waxaynu soo gelinaa qaybtii laga maamulayay website-keena waxaynu gelinaa extensions hadda waxaynu dooranaynaa extension manager dabeed waxaan leeyahay markaa extensionkii cusbaan markaa soo install garanaya waxaan leeyahay extension package filekii baan soo dooranaya choose file baan leeyahay wuxuu ii yaalay markaa desktopka wuxuu igu sii jiray folder la yiraahdo training resources wuxuu ahaa markaa moduleska ayuu ku sii jiray kaas ahaa haddii aanad haysan waxa weeye soo download garayso ku dhufo waxaad leedahay markaa open halkaa marka uu kuu keeno waxaad tiraa upload and install dabeed time yar bay qaadanaysaa marka inta uu install garanaya waxa uu kuu sheegayaa in joomlihii uu install gareeyay /show modulekii marka maxaan haddaba u soconnaa waxaan u soconnaa positionkii halkaa ee ahaa position 3 inaynu sawirro isbedbedelaya keenno haddaba si aad u keento horta waxaa ka horeeya in extensionkii hadda la install gareeyay loo sheego oo la yiraahdo waxaad ka soo baxdaa position 3 waxaan ku noqonayaa markaa meeshii aan ka maamulayay website-kayga waxaan tegayaa extensions waxaan leeyahay module manager dabeed halkan waxaan ka baarayaa markaa /show modulekii aan soo geliyay waa adiga arkaya hadda waa none position looma sheegin si aad position ugu sheegto waxaad ku dhufanaysaa /show-gana hal mar click siinaysaa dabeed waxaad leedahay horta marka hore /show module waxaan odhanayaa marka hore statuskiisu ha noqdo publication halkaasaan ku dhufanayaa publication dan positionkaan u sheegaya oo positionkii halkaasi aynu sawirka ka saarnay ee la odhan jiray position 3 baan geynaya halkan aan tagaya waxaan leeyahay positionka waxaad ka dhigtaa baan leeyahay position 3 position 3ga marka aan doorto position 3 waa kan marka aan doorto in publication ka dhigo wuxuu ka odhanayaa source sawirada halkee laga helaya waxaan leeyahay from image folder baa laga helaya wuxuu ka odhanayaa markaa image folderkii markaa loo sheegaya markaa waa inaan image folderkii u sheegnaa meesha uu ka soo akhrisanayo waxaan leeyahay image folder waa in markaa folderku dee kuu jiray marka hore halkaa marka aynu marayno inta aynaan step kala qaadin waxaanu soo samaysanaynaa folder aynu sawiradeeni ku noqono dib baan halkaa ugu noqonayaa si aan folder usoo samaysto waxaan sameynayaa waxaan gelayaa horta labadayda sawir baan soo qaadanaya waxaan gelayaa markaa halkii c-deenii waxaan sii gelayaa wamkii waxaan sii dooranayaa www-gii waxaan sii dooranayaa markaa website-keenii oo Somali Jobs ahaa waxaan sii gelayaa markaa imageski waxaan ku sii samaysanayaa ka soo qaad sample data halkaasoo kale waxaan leeyahay very simple ama imageska halkaasaan right click sameynaya waxaan leeyahay new folder waxaan u bixiyay show sawiradii aan sitay markaa dhex dhigaya marka waa labadaas sawir dabeed iska xidh marka haddaba aynu hadda activate garayna markaa /show-gii aynu install garaynay waxaan sameynayaa markaa waxaan tegayaa qaybtii aan ka maamulayay website-kayga waxaan leeyahay module manager /show-gii aan install gareeyay baan ku dhufanayaa waxaan leeyahay positionkaan dooranaya marka hore waxaan leeyahay position 3 titleka /show-ga in la qariyo weeye marka halkaasaan ka oranaya hide statuska markaa modulekeenana waxaan ka dhigayaa markaa published waxaan leeyahay ka soo akhrisa sourceka markaa image folder waxaan u soo sheegaya markaa folderka kii aynu soo sameynay iminka show ayaa inoo soo baxaya oo kuwa labadii intaa markaad saa u samayso waxaad oranaysaa markaa save and close dabeed haddii aan site-keenii ku noqdo oo home tago
waxa meesha ka soo bixi doona markaa sawiradeedu soo gelinay wali ma soo bixin hadaan ku noqono position slide show aan ku noqdo waxaan niri source waa ka position 3 baan niri let me position ka aan bedelo position 3 waxaan filayaa inuu yahay this position then save aan markaa refresh iraahdo ma wali ma soo bixin position kan bedelay waxa laga yaabaa position ku inay khaldan yahay halka waxaan ka dhigayaa ka soo qaad position 0 let me check waxay haray intaan sorry aan taas sameyn position ku sax weynoo hasan filayo position 3 aan ka dhigo halka menu assignment ka ayaan tagaya maxay noo dooran module assignment ku no pages yahay halkaas waa inay noqotaa marka all pages hadii kala bahalkii muuqan maayo inta marka aad sameeyso waxaad leedahay save and close waxaan ku noqonayaa marka website-keeni waxaan leeyahay home refresh maxaa meesha ka soo baxay waxa ka soo baxay marka sawirkii isbedbedelay haddaan marka ku dhuftay imika sawirka waad iga arkaya play haddaan iraahdo sawiradeeda automatically hadii jeer ay isku bedeli doonaan oo markaas oo play iraahdo marka automatic beenan u sheeginahay waxa weeyaan saasay marka sawiradeena hadii jeer ay isku bedeli doonaan marka mar alla marka doonto ayaad position kasta waxaad sameyn kartaa aad ka dhigi kartaa slide show ama wixii kale hadii jeer ee aad doonayso hadii ka meesha laga qaranayna waxa la sameyn karaa in lagu noqdo marka qaybtii laga maamulay website-keena la doorto marka extensions module manager la yiraahdo dabadeed slide show-gi marka lagu dhufto hadii aad ka saarayso marka waxaad sameyn kartaa inaad tiraahdo halka inaad unpublish doorato waa isi waad sameyn kartaa marka hadii aad settings-ka wax ka bedelaysana hadii jeer halkaas aad ka dooran kartaa laga bedeli karo sida kale looga saari karaa waxa weeye inaad sameyso inaad tiraahdo tick tire aad hal mar ku dhufato dabadeed haddaad ku noqoto site-kaaga marka aad sheegarayso marka meeshii uu ka baxaya haddaad soo gelinaysana the same waxa in tick baad saaraysaa halka extra ayaad ku dhufanaysaa haddaba sidee loo soo geliyaa marka qaybtan iyadana bidixda haddii aad doonayso in bidixda wax la soo geliyo iyaduna the position name bay yeelanaysaa marka doonayso qoraal halka in la soo geliyo bidixda waxa la sameeyaa de extensions baad tiri kartaa waxaad oran kartaa module manager waxaad oranaysaa marka new tusaale ahaan hadba inta aad u baahan tahay way farbadan yihiin modulesku custom html waa mid adigu aad waxa doonayso aad ku qoranayso oo design gareysanayso marka waxaan leeyahay custom html waxaan ku qoray halka marka hiraal waxyaabaha aan higsanayno halkan aan ku qoray hiraalka iyagu intaas oo kale ciwaankii baan siiyey title miyaa doonaysaa dadku inay arkaan show baan idhi position kan u sheegaya marka imika template-keena ni position 7 ayuu left-ga u yaqaanaa left wuxuu u yaqaanaa maxay position 7 buu yaqaan 8 buu yaqaanaa left-ga position 8 baan doortay waa publication ciwaankii waan siiyey wixii oo dhan waan siiyey menu assignment-kii waan tagayaa waxaan leeyahay on all pages dabadeed save and close waxa markaa dhici doona hadii aan home tagon refresh iraahdo halka waxa soo gali doona marka qoraalkii sawirkan dheeraaday macnaheedu waxa weeye sawirkaagu had iyo jeer inuu yaraado oo cabirka meesha uu had iyo jeer leekaado ayaa marka laga doonayaa hadaa la yiraahdo waxaan dib ka eegi doonaa marka sessionska dambe sida componentska iyo moduleska iyo waxyaabaha loo sii sameeyay ayaynu eegi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.